وهاجاج وحنا حفيز كيسا كوسا بوقنا إنجنير عبد الرزاق حمد الله وكم إذا دنيرة هالابور كجناح سكول مجال هرجيسة وطبعا كم إذا دنيرة وحقوق قرطة برها بالشدة سقوا دوانها كهلي دنيرة أنا كنت داري إن أي جوجيان فلالك نعيب كاه أنت اللي جود تشرو حولها الله دور شوين كسومال لان كود تشرتو دنيرة في سومال لان أيوم مرر بدن برها بالشدة وجسوا جود بيها تردارنا الله حريدا إيه سن بدأ دور شدة وقلان حسبية أنا كنت هاجران برنامج كودا ويكب حان حولها قبيلة هذا بقى أديات بد ما سنت إنجنير عبد الرزاق الحمد لله سيد وقت جاء نوصي سي فالمحد دنيرة كورانيسا فريميه دنيرة وجود بنشرتي هل كان محد كلاده بسم الله الرحمن الرحيم مركو أبدأ ما سنتين نقول برز حافظه بقى waxaan dhalinyarada marka hore u sheegayaa xisbiga Soomaaliland waxa loo abuuray in qarankan ay matalaan madax ka noqdaan xisbi taageer muxma laakiin waxa xun inaad ku taageerto mabdalaan waxaana ka socon qabiilo ku taageerto xisbiga Soomaaliland marka hore iyagana waxaan leeyahay hal yaray shacabkana mid baan leeyahay taageerasho mid baan leeyahay xisbiga Soomaaliland waxaan leeyahay waa la timaada mabda qarankan Soomaaliland aad ku hantaan marka shacabku ay nagu codkineysiyaan taageerayaasha mid baan leeyahay taageerayaasha waxaan leeyahay xisbiga in marka xisbi taageerayso muxma laakiin waa xun inaad fashil aad la timaado arrimo ku xadgudubba xisbiga kale sida cayda gubista aflagaadada shacabka mid baan leeyahay waxaan leeyahay markasta inaga ayuunbaa cid doorana markaan cid dooranayna waa inay farteena iyo codkeena aynu doornaa kii wadankan qaranka Soomaaliland meel marinaya laakiin su'aal baan weydiinaya xisbiga Soomaaliland inta badan waxa laga qabtaa mashaariic wuxuu ka cawdaa hal yaray oo inay musuqmaasuqaan haddii maanta eegto nimanka xilka loo magacaabo xisbiga waa nimantoodii kari waayay oo yaani mashaqaysiyaala marka ma inagu ka wahayn nin aan shaqaysanayn oo aan bulshada sharaf ku lahayn markay xil u dhiibno mar la xisaabtay xilkina qaato oo saaran xisbiga soo baxo markuu xisbigu soo baxo ninkii xil baa loo magacaabaya ninkii ma shaqaysto bulshada Soomaaliland wuxuu ka yahay darab out yani nin noo shaqo dhaxsan oo shaqaysan kari waayay marka miina qurux badnayn inaan markaynu doorano nin sharaftiisa iyo cisigiisa ilaashanaya oo day lacag leh markaana wadankan uu doonayo kaliya wadankan inuu wuxuu ka bedelo maaha nin lacagtii jeeb ku gurto isagu waa in wadankan uu wax ku soo celiyo سيو بين إنجنيرات ما سنتي دنيرة صوب بدن يصير بريها نيجو علن حسب جوبية وأركين حسب جا كلا على ذيك الحيسو حسب جتاجرسين هنا وشرعي هيك كلنا هو أركان اللي هي حسب سمعبيه دنيرة محدية أو ما أعرف دنيرة واحد مو بقى حلمت قرن كسومان لا واحد كشوفه شرف أيكون نوري واحد سكان هيا وشرفهم وأيو قرن كسومان لا ركبة وده على مودنتي واحد دنيا إنه هلان دولة دسم oo sharaf ku nool maanta xisbi nin baarkasa xisbi ku jira bareeka kale ka baxaya maanta kan buucaya barniiki kale waxay laakiin dheer waxa la mid baan waxaan leeyahay waa xisbiga taageersantay taageer sharaftiisa xisbiga mudnaanta uu ka jeceshina kaaga lagu sameyn kan kale ku sameyn ayana dheerada waayo maanta hadii aad uga aflagaadiso barni nin kale ka ay uga aflagaadinaya marka waxay noqonayaan dad is haysta qarankan ma baahna in la qabso wuxuu baahan in si sharaf iyo ciise loo tartamo oo mabda taageersantay aad fartaa maanta gaadho aad ku codayso sharciyada saddex xisbiyo sharciyo ay tahay inaan midna wax la yeelin Soomaaliya calankii siyaasadeed waayo waxa laga yaabaa in walaalka taageersan yahay xisbiga kale saalaan siinaya yar waxa walaalka taageersan yahay walaalka shir dignidkiisii sharaftiisii midna ma dixgin كما سوق الحزب ما تاجر وارن أنا بتصاران حزب ما تاجر لكن أنت ما تحزب صاران حزب واحد كنت تاجر لما أرمود كو مبدأ أهان يوفي الهان يكرتهان فيلم نغريا ما أنت فيلم نغريا ما هنا عادي أنا في الجديو ونغريا ما أنت عد كذا أنا فرتي أنا كم متوسط واتاسيت لكن أنا على كيس الجبور أنا يجا في الجديو من أنت سوي كذا يوم تاني قرر كنا نقول ليه دولي خدام بين دولتنا واحد ليه nimanka noocaas waa in iyaga sharci la waafajiyay saana waxaan kala u soo badan way maanta waxaan arkay xisbi wadaniyo oo inay ku taagan yahay kulmiina sharaf u sameeyo waxa arko kale xisbi kulmiye la gubayo calankiisa marka dadka noocaas waa in laga qabtaa bulshada Soomaaliland waa dadka noocaas ayuun baa xumaantooda ka shaqeynaya وهناك أدم سياهي إنجنير
cabdirasaaq xandulle oo xafiiskiisa ku soo booqanay shabakada caalamiga ah ee caalami news ayaad nagala socotaan aad baan ugu mahadsantihiin.